dhalinyaro joogta galmudug yaasha ila soo hadleen markaas mid wuxuu yiri sheekh kalimooyinka jumcada aad jeediso oo Soomaaliya arimaheeda waaqicad kaga hadasho galmudug maxaa uga hadlayso markaas maxaan dhahay galmudug aan kaga hadlay adaad saadaysi taqaan laakiin waxaan ka rabnaa doorasho meesha ka socotee waa la iskhilaafsan yahay inaad kelimo dadkaasi ku wajahan inaad noo dhaxdo shaqada ugu diray Soomaa homework adag ugu diray waan ka soo jawaabay laakiin waa inaan la hadlo marka nasiixa waa inaan siiyo waxay tahay nasiixadaas Soomaalidu si ay isu taageeraan sida isu taageeraan waxa kamid ah markii qabiilka laga soo tago gobol intii isku gobol ah gobolada kale way isaga dhow yihiin oo is taageeraan oo ciyaaraha ay dhalinyaradu yaqaanayso markii gobolada la ciyaarayo ama koox sports ama degmooyin la ciyaarayo hadii degmada aad degantahay ay ciyaarta ku jirto adoon shaqaba kula ciyaar hataa yaa dadku waxay dhaayaan degmadeena dheelaysay waa in la taageero waxaan u sabariyay oo dawladii hore ay jirtay waxa la sameyn jiray ciyaaraha gobolada marka waxay kamid ahaayeen kuwa ugu xiisaha badan ee dadku ay xiiseeyaan anigu waxaan ku noolaa markaas degmada Baydhabo waxa lagu qaban jiray wareega hore wareega dambana labada soo baxda ayaa xamar imaan jirtay oo gobolada sax way kala qaybsanaan jireen marka Baydhabo waxa isugu imaan jiray marka Jubbada Hoose oo Kismaayo ah iyo Baydhabo iyo Boqol iyo Gedo afartaas inta badan waxa soo bixi jiray marka Kismaayo iyo Baydhabo labadaas finalka isku soo hari jiray kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad ay ku soo kala bixi jireen final kamida finaladii ayaa galab jumca loo balansan yahay in oo la ciyaaro oo Kismaayo iyo Baydhabo ah wadaad masaajidka muadinka ah haduu dhinta Allah naxariistee yaa saan oo markaan khudbada tukanay yuu istaagay markaas wuxuu maanta waad ogtiin galabta finalka yaa jira waxa ciyaaraya gobolka Baay iyo Jubbada Hoose waxa la rabaa marka gobolkeena oo Baay faataxada horta marba guuleystay firi waxaan soo wada marka taageerad ma ogtahay gobolka la taageero leh meesha aan u socdo marka waxay tahay galmudug soo hadda marka hadlayno Soomaali markii la fiiriyo galmudug fursadda ay helaan cid heshay ma jirto nolosha siyaasiga ee Soomaaliyeedna muhiim ayay u yihiin inay muhiim u yihiin waxa ku tusaysa waa gobolka isku helay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihi waxa ka fakaday hadii madaxweynihii ra'iisul wasaarihi la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ay qaadatay labadii kale galmudug ay qaadatay maxaa la rabay marka galmudug inay dhahaan war Soomaalida kale haday doonaan waxay naga sheegeen hadda inaga inoo toosan tahay oo madaxweynihii ra'iisul wasaarihi isku haysanay aynan mucaaradin aan dhisno wixii aan sameyn karno oo horumar aan sameeyno reebaadiya waxa la yiraahdaa markii oo roob u da'ayo roobku meesha ay reebaadiyu degan yihiin waa meel banaan ah buuraha iyo kayntana waa geedo iyo buuraha ku yaala roobku markuu da'o meesha ay xaafadu ku taalo guriyo aqal Soomaali ku yaalaan maadaama ay banaan tahay waxa laga yaabaa inuu san aad roobku ugu diin oo subaxdii markuu waaga bariyo ay kaynta aadaan buuraha iyo markay xoolaha kaxeeyaan xalay roobkii da'ay meesha ay deganayeen uu ku yar yahay meesha ay tageenna oo buuraha iyo geedaha ahna uu ku badan yahay juqraafiga markii la fiiriyo sababta ay saas ku noqonayso waxay tahay buuraha iyo geeduhu waxay soo jiidaan roobka way soo jiidaan meesha banaanna roobka ma soo jiido saas daraaddeed markii deegaankii hadda laga hadlay waxa la yiraahdaa dhirta yaan la gurin hadii dhirta la guro roobkiina uu yaraanayaa abaar ayaa meesha ka dhacaysa daaqina meesha ma aha geedaha la daayo geedaha yaan la gurin juqraafigu wuxuu marka meesha geedaha ay ku badan yihiin roobku uu soo jiidaya waxa loo tagayaa geedaha hoostooda oo balli noqotay oo biyuhu ay yaalaan reebaadiyo markay arkaan marka meeshan inay biyuhu ku bataan halkan ay ku yar yihiin sababta ay garan waayeen waxay u qaateen hal sabab ay soo saareen waxay dhahan waxay saas ku dhacday geeduhu markuu roobku da'ay habeenkii geeduhu ma hadlaan shib ayay yihiin buuruhuna ma hadlaan inagu wuxuu roobku inoogu yahay waa hadalka aan hadlayno ee guryaha dhexdooda aan ka dhex hadlayno roobku markuu soo daatay habeenkii waxay leeyihiin aamusa roobku duur ha noo maleeye si fiican noogu dege marka waxaan ka wada galmudug waxay idin dhahaan roobku aad haynoogu dee madaxweynihi baan haysanaa rasuulkii baan haysanaa aamusa in la dhaho oo tartiib
dadka kale la rabay inay moogta intay qayleen ay dhahaan warsay ku dhici kartaa inay isku darsadaan oo dadkii kale iska aamusan dadka waxay aaminsan mataqaana waa ka suuqa bakaaraas aan sheegnin oo xamaali oo wax culus wada yaa mid ku joogsaday suxun ugu istaagay waxa xanuunsaday marka saa intuu fiiriyo wuxuu ku yiri war maxay igu istaag wuxuu arkay inuu qori oo garabka ku wato wuxuu saaxiib igu joogso laakiin tartiib igu joogso marka dadkan kale waxay ogol yihiin in tartiib loogu joogsado ogol yahay laakiin reegal mudug in lagu joogsado ma yeelayaan haday isku joogsadaan tartiib isku joogsanayaan suxoog la isku joogsanayaan marka taladu maxay tahay walaalayaalow ha isku joogsanina si tartiiban ha isku joogsanina si adagna ha isku joogsanina heshiiyo oo si tartiiba wixiina u kala qaata haday dhibaato meesha ka dhacdo cid ka faa'iideysa ma jirto hal xigmad oo siirada aan ku daro nabiga sallallahu alayhi wasallam Madiina u soo hijrooday ayaa waxa dhacday quraysh nimankii la dhigi jiray warqad soo qoreen waxay yiraahdeen innahu qad balagana annakum aawaytum saahibana waxana soo gaartay inaad soo dhaweyseen ninkii naga soo baxsaday oo Madiina uu joogo oo aad garab istaagantihiin oo soo dhaweyseen oo difaacaysaan hadaba warqad waxay ku soo hagaajiyeen Abdullah ibn Ubay ninkii la dhigi jiray oo Madiina joogay oo munaafiqiinta ra'iiska u ahaa ayaa waxay ku yiraahdeen inaad soo dhaweyseen saaxiibkii anaga naga soo tagay waan ognahay ama ninkaas iska soo bixiya oo Madiina ka soo eriya ama asaga iyo macal idinka dagaal aan ku soo qaadaynaa idinku sidii idin roon marka inaad iska soo bixisaan iyo inaan idin la wada dagaalno idinku mid keena warkii ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam soo gaaray wuu yeeray Abdullah ibn Ubay wuxuu ku yiri qofku xal moogtay qof walba fahamku uu fahmaayo ayaa lagu la hadlaa aayada quraan hadii loo akhriyo iyo yaani Abdullah ibn Ubay ma fahmaayo meel kale uu ka tusay wuxuu ku yiri hadii dagaal Madiina uu ka dhaco waxaad ogaataa waxa dhamaanaya waa caruurtaadii maxaa yeelay asagu waa Khazraj qabiilka Madiina degan ee walaalaha ah muslimiinta ahna waxay ka koobayeen Aws iyo Khazraj hadii la isdagaalo marka nabiga dadka difaacayana waa Aws iyo Khazraj oo wada jira inta uu ka haystay ama Khazraj ahaan ku raacday ama wax kale ku raacdayna waa isla Khazrajkii oo isla qabiilkii wuxuu ku yiri marka hadii dagaal meeshan uu ka dhaco waxa labada dhinacba ka kala dhimanaya waa caruurtaadii marka caruurtaada ha iska dhameynine quraysh waxay ka qaadaysaa malaha abaabulkan aad wada iyo waxaan ayada iska daa هو قرص يحول وصح على لا إنان هذا لأن هذا يسدل هذا يسدل ويسو أنا أقول إيمانا يكون دلايا في النهاية نتيجة واسكمت مركا بل هذا قوي ما وكاله هذا يدل كرت يدل واي وان كايس كعلن هذا ذو حاجة دش هذا حنا كادل لكن بناك اللي جاي يستقبلوا هذا هيه يدينكم إسلامية أو واحد يسكن معنا أيهين ذاتك ولا لها حكمتكم مجرته وحلا فائدة مجرته وحنا وين يرى الدنيا اللي جوجا وين معها كيش ما أنت جوجا بري مجوجو marka nasiixadu waxay tahay umada Soomaaliyeed waxaan la jecelnahay inay kulligeed wada fiicnaato oo walaalo ay noqoto oo wadanku u hagaago oo khilaafaadka laga baxo laana in la iskhilaafsanaado iyo in la heshiiyo yey faa'iidada kay ku badan tahay ma khilaafkay faa'iido ku badan tahay mise heshiiskay ku badan tahay oo dad iskhilaafsan waxan baa ka xumaada ma ogeey wax uma hagaagaan laakiin dadku markay heshiiyaan wax walba u hagaagay marka saas daraadeed meel kasto oo ay doorasho iyo maamulo iyo markaas ay ka jiraan dadku way isqabtaan waa la kala duwanaada si ayuu qof wax u arkaaya qof kale si wax kale ayuu arkaaya laakiin si wax u arkaas waxa la rabaa inuu san dhaafin hadalka sidaan u jeeda anasaan rabaa saani mufaawadaad iyo wada hadal waa inuu san dhaafin haduu inta ka sii gudbo oo la yiraahdo dagaal iyo waxyaabo la mid ah cid faa'iideysa iyo cid wax ku noqonaysa ma jirto kulli waa lagu wada khasaaraya marka intaan kulli wada khasaareen waxa wada fiican inaan kulli wada guuleysano saan ku wada guuleysan karnaa nabad ayaan ku wada guuleysan karnaa maxay nabad hadii la helo dadkoo dhan way guuleysteen nabad hadii la waayana dadkoo dhan way wada khasaareen marka meel kasto oo Soomaali ay ka jiraan arrimo maamul la sameeynayo ama maamul jira mar walba waa in dhimrinta iyo walaaltinimada iyo isu aqal celinta waa inuu saa'id ka ahaado khilaafaadka iyo isnacaybka iyo dadkicinta arimahaas ayaga ana horaan u soo arag wax natiijo laga gaarin ma leh qofkii sameeyana asagoon baa taariikhda meel xun ka galaya qofkii nabad iyo walaaltinimada dadka ugu baaqana asaga ayaa ku guuleysanaya oo ku helaya sharaf adduun iyo aakhiraba